مرت شرفت كالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ما مهله وما أنت هالكن سوق هاي كياني شركان جرائد ودارين هاي الرماها ومدحوينها كهالي وسق حن وتففترن وجهالي مركه هراء وحن رباء إن كتعسيه مدحوينها فلكي حماة وتعدي أها ورنتي لو بهدلي لو سمي ضرر markii heshiis lagu galay xabad joojin oo odayaashiisa dhaqanka saraakiil beesha caalamka wadamada aan saaxiibaha nahay ay ku qanciyeen in xabad joojin la sameeyo madaxweynahana uusan sameyn banaanbixi uu gurigiisa halkan ugu soo noqdo xaqiiqatan isbaaradaas loo dhigtay waxay qaadatay muddo 3 saac ku dhow oo bahdilka ah oo la falxumeeyay oo runtii la gaarsiiyay meel aad iyo aad u hooseysa sharafkiisii sumcadiisii heybadiisii wax loo dhimay loogu talagalay in laga reebto wax alla wixii ciidan ahaa iyo wax alla wixii qalab ahaa uu haystay oo isku ilaalinay oo isagoo kaligiisa وهالكاس كسر طبعا الحمد لله شغال بدن كذب سي شرف له يقول لي وصل نقطة وحكاه الرئيس مالتي كسيه الرئيسي دراد مدلل 14 ساعة واضح يا وحاله غلط عالمي هو بكي عدوه لو طلق عليه والنوعية سكال دورة حديتها بيبيو حديتها مدافع حديتها الشيكيال نوع والبا أو كردون أو عيدا كوا استعمالها وحالولات دجالمي سيدي عدوي وكله وحلوه تلقى إن هالكاس لوجدله أما مركب ويس سهلتها لو حياله بحو قلب صدق مركب مدحويني شيخ شريف ولا يقنا ومدحوينه يضل كان كبحيي كمل جارك ومدحوينه شباب كل دجالم هالكن أنا وبرام منستر هو أنا جاي سوى وضع شقيرنا يعني مقالنا كحرين الشباب وكحرين الشباب هذا بحر إيه شباب هذا خاص سنة بضح يا حسن الشيخ محمود لو يجي حلك يدور لون ندي في مقالنا سد أكتر مقالنا شباب يعني نص هي ستين ظروف تاس أدق يدور صومري لذلك كسبان يدور صومري دور شيء الوقت المقالنا الحديدة iyadoo dibadda laga keenay oo lagu soo dhaweeyay xasan sheekh maxamuud ma istaahilaan madaxweynihii inta sameeyay inuu naftiisa khatar galiyo waxaan rabaa arin dhacda uguba oo ayaduna dhacday inaan ka hadlo dhacdadii ka dhacday siigaale dhacda uguba sida aad la socoteen annaga waxaa noo yimiday ugaas maxamuud cali ugaas iyo imaamka iyo xildhibaano iyo senataro waxay noo sheegeen inay jeclaalahaayeen in wada hadal la aado waxay naga codsadeen inaan ogolaano arrintaas waa ogolaanay waxaan dhahnay ragga kalena soo arka magaaladu waa kala xiran tahay balladanku inta baxdaan ragga kale soo arka ku soo qanciya waxay u tageen hoyga oo joogay ra'iisul wasaare xasan cali khayr oo ay la joogaan ugaaskii reerka ugaaskii mursade iyo taqriiban 70 oday oo dadkii waxgaradka mursada ah ugaaskii iyo akhyaartii la socoto meesha fadhida ciidamada waxa la amray inay weeraraan gurigaas arintaas waa arin uguba arin hore u dhacday ma waxa la socotiin hubka lagu weeraray sida uu cuslay iyo sida uu ahay mid argagaxin leh iyo waxa lagu tala galay ilaaha ku mahadsan runtii dad waa ku dhinteen Allahu naxariisto waa hubnaa dadna waa ku dhaawacmeen laakiin dadkii odayaasha ah ee meesha fadhiyay waa laga soo badbaaday waxaan rabaa beesha mursade ina uga taxsiiyo arintaas uga garaabo arin uguba inay tahay oo maalinkeeda laga fariiso doono laakiin runtii inay tahay arin dhaqan ka baxsan in ra'iisul wasaarihi lagu khasbo
in la saaro baabuur nabad sugidda ay leedahay si loo tusiyo humiliation taas waxay tusaysaa dawladda hadda joogto kama nabadgelaya maalkaagu oo waa aragtay dhulkii waa kaa qaadanaya oo sharafkaagu kama nabadgelayo waa waxa la sameynaya hadda oo dhiiggaagu kama nabadgelayo ciidamadii oo dhan waxaa lagu fidiyey magaalada Muqdisho derbi iyo ciidan derbi iyo qoray maxaa looga baahan yahay saacadaas la joogo Kaaraan Cabdicaziz waa xiranta lama geli karo haddii shala dartan loo geeyo dadka maxaa loo ciqaabaa hadda intaas waxaa sii dheer guryaha caadiga loo degan yahay askartu dadka waa kala baxaysa waa laga saaray waxyaabaha keena inaan u nuglaano wada hadalka taasaa ka mid ah maxaa yeelay annaga ma rabno darteen in dad loo dhibaateeyo ma rabno waxa aan ka dhidhinaynaba waa dulmiga dadka lagu hayo arrintaas marka ugubka ah ee dhacday Soomaalidu waa ka wada hadli doonaan laakiin waxaan rabnaa inaan sheegno dhinaceena in aan aad uga soo horjeedno raaligelina ka bixinayno dadka ay ku dhacday dawladdan aan ku cambaareynayno ciidamada qalabka sida waxaan rabnaa inaan kala hadalno awaamirta khaldan sharciga hareer marsan ee taabanaysa wada jirka ummadda inaan la fulin maxaa yeelay xaq looguma laha waana gardarro yacni bal maanta 70 oday oo ugaasku uu ku jiro iyo akhyaartii ergada hadday dhama lahaayeen maxaan ka hadli lahayn maanta waxaan aadi lahayn civil war shaki kuma jiro ninna kaama ogolaan inaad ugaaskiisa disho ninna kaama ogolaanayo nabadoonkiisa inaad disho kaama ogolaanayo marka waxaad ku ciyaaraysaan dab waxaa ujeedaan waa un kaliya inaa xukun sii joogtaan xukunkan hortiinaa la joogay waa timaadeen waa ka tagteen waa ku soo noqoteen hanaankii aa ku timideen inaa ku raadisiinaa la rabaa ciidanka qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed inaan la kala fogeyn waa taageersannahay waa jecelnahay xurma u haynaa runtii laakiin hadday maalin walba xabad la hor taagnaadaan shacabka oo dadka soo xiraan arrin fiican maaha oo dulmi ku soo xiraan waxaan rabaa hal qodob oo muhiim ah inaan sheego maadaama dawladdu waxa ay sameynayso wax akhlaaq la'aan ay yihiin akhlaaq darro ay yihiin dawladnimada aan ku fiicnayn ay yihiin inay lacag isticmaalaan si ay dadka u caayaan oo magacooda u xumeeyaan waa la yaqaanaa annaga waxaan ka shaqaynaa ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda horumarkeeda sharafkeedan ka shaqaynaa taariikhda nooguma qorra maalinna shisheeyana u shaqayno mana u shaqaynayno mana u shaqayn waana la soo taaganna waxaan rabnaa marka inaan cadayno dicaayadaha beenta ah oo rakhiiska ah oo dadka wax magaradka ah oo xilka ku jooga inay dad caayaan inaan la dhageysan waxaan ku gabagabeynayaa been abuurkii dhacay shalay hubkii la soo bandhigay hubkaas qori kuma lahayn baabuur kuma lahayn ma arkin xataa oo ma aqaan waxaana la wada og yahay meesha laga keenay waana naloo sheegay in la sameey doono arrintaas horaan u ogeyn waxaa loo yaqaanaa guri kastaba inta huboo laga soo bixiyey dadka iska lahay waa la yaqaanaa marka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed ee wax garadka inaan u sheegno annaga hubkii aan meesha ku tagna hub kooban oo ahay waxaa ila meesha waxaan u tagnay mudaaharaad marka uu dhici waayana waa soo laabanay hub noo yiil meesha ma jirin hub aan uga soo tagnana ma jirin sidaas inaad ula socotiin dicaayadaha rakhiista ah oo beenta ah oo xukun dheeraysiga lagu raadinayo in aan la dhageysanin intaasaan rabaa aniga inaan ku joojiyo